gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya madax ka socotay rugta ganacsiga iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay si wadajir uga dhagax dhigeen dhismaha Safari Apartment 2 dhismaha waxaa maalgelinaysa IBS Bank isagoo noqon doona dhismaha ugu dheer magaalada Muqdisho sida lagu wado dhismaha Safari Apartment 2 ayaa waxa uu socon doona dhismihiisu muddo 30 bilood ah iyadoo loo dhisayo qaab casri ah sida uu sheegay Cabdirasaaq Cali Warsame oo ah gudoomiye ku-xigeenka bangiga IBS waqtigiin ba IBS marka laga hadlo deegaameynta xaafadiisii koobaad waxay ahayd Safari Apartments 1 waxa ku soo xigay Safari Village waxa socoto hadda ku xigta Jazeera Estate iyo Sartan Dheer maanta soo bandhignay oo la yiraahdo Safari Apartments 2 iyadoo on kaliya bilicda iyo quality-ga maahane aan rabno xataa dadka inaan dhinaca financial ka saacidno IBS wuxuu u soo bandhigayaa bulshadiisa inay u yimaadaan ka soo qayb galaan guryahan qayb ka qaataan dalay dibad meesha joogaanba waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ugu bogaadinaynaa in maanta dhagax dhigeedii la sameeyay markaati ah ka tihiin soo aragteen oo goobjoog ka ahaydeen from halkaasna waxaan rabnaa in mashruucan maanta bilowdoon rajeynayna 30 bilood inuu ku soo gabagaboobo aan IBS wuxuu cadeynaa inuu financial diyaar u leeyahay dadka kii cash wata uu soo dhaweynayo gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Galambi wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Dubbe iyo wasiiru dawlaha wasaaradda hawlaha guud iyo guryeenta Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in loo baahan yahay in guryaha la dhisayo ay noqdaan kuwa la iibsan karo ama la kireysan karo IBS iyo maamulkeeda ku leeyahay maadaama annagu aanu mas'uul ka nahay guryuhu wax la gadan karo inay noqdaan hadday guryo badan dhismaan oo qurux badan laakiin la iibsan karin ma carab bay noqonayaan waana daadaawanayna kaliya laakiin waxaanu rabnaa inay affordable yihiin oo dadku iibsan karaan oo dadku inkastoo hadda aan ku faraxnay inay fududeeyeen marka koowaad waxaan leenahay Safari Apartment hambaliyo ilaahay idin barakeeyo marka labaad oo runtii aan isleenahay waxa lagu amaani karaa waxyaabaha ayna tuseen ama aanu ku naqiinay hore ugu naqiinay dhalinyarada iyo dadka kale ee wax soo bartay waxyaabaha maxaajaaniska oo ay ka faa'iideysan doonaan oo shaqada laga helayo cid kasta oo abuurta ganacsatada iyo rugta ganacsiga waxaa jaanis u ah inay ugu hambaliyayaan farxad weyn bay runtii noo tahay maanta inaanu ka soo qayb galno oo aanu makhraati ka noqono dhismahan Safari Apartments 2 7 sano ka hor bay ahayd markii la sameeyay Safari Apartments 1 oo runtii sawirradii ugu badnaa la isu diray ahaa waagaas wadda sabku ma xoog badnay emailada aad la isugu diri jiray apartmentskan isficmaalan xasuusta 7 sano ka hor oo aad loogu wadaagi jiray in xamar sidoo ku socoto maantana sida uu sheegay General Bashiir Safari Apartmentski postcardada lagu sameyn jiray xilligaas ee la isu diri jiray marka loo eego isaga ugu gaaban 9 dabaq buu ahaa waxa yimi qaar ka sareeya waxa ka sii cajiibsan Safari Apartments 2 in laba la jeer lagu dhuftay oo 18 dabaq oo hadda marayo gabagabadii munaasabadan lagu dhagax dhigay Safari Apartment 2 ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish waxaana ku bogaadiyay ganacsada Soomaaliyeed maalgashiga ay sameeyaan isagoona soo dhaweeyay dhismaha Safari Apartment 2 waxa sharaf noo ah maanta inaan dhagax dhigno Safari Apartments 2 oo runtii ah horumar weyn oo ku soo kordhay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaan rabaa inaan si gaar uga mahadceliyo walaalaha mataqaana Safari Apartments iyo IBS Bank Cali Warsame oo runtii tusaale cad u noqday ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku dhiiraday inay dalkooda ama magaaladooda ay maalgashadaan runtii والحمد لله إلهي مهديس هدي أمبري أهان جرني
kuwa yani burburka hogaamiya oo mataqaanaa adduunka uga horeeya xagga burburinta dalkooda xagga mataqaanaa yani niyadilka ama qaxa haddii aan ahaan jirnay kuwa wasaqda iyo yani nidaam darrada iyo kiyoska iyo waxaas haddii aan hogaaminayni inaan maanta yani regionka aan ku naallo iyo adduunka regionka aan ku naallo aan nahay kuwa hadda ugu rajada roon xagga soo kabashada. Maxamed Ciise Koonaa, Universal TV, Muqdisho.